السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دمان daawadayaasha qiimaha sharafta leh idil ahaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka taariikhda haliga qaybtiisa koobaad oo aan maanta ku soo qaadan doono taariikhda gobolkii weynaa ee Xasan Aadan Samatar taariikhdiisa magaciisa oo dhameystiran waa Xasan Aadan Samatar wuxuu dhashay sanadkii 1953 asagoo ku dhashay degmada Diinsoor ee gobolka Baay ee koonfurta Soomaaliya Xasan Aadan Samatar wuxuu ku soo barbaaray degmada Diinsoor afka Soomaaliga waxaa la sheegaa in loo qaybiyo laba lahjadood oo kala ah Maay iyo Maxaatiri haddana Xasan Aadan Samatar waa fanaanka kaliya ee si isku mid ah ugu heesi kara labadaas lahjadood ee kala ah Maayga iyo Maxaatiriga Xasan Aadan Samatar wuxuu soo shaabaxay sanadihii 70-meeyadii waxayna ahayd ahmiyadiisa ugu weyn ee horumarinta fanka Soomaalida ee loo aqoon jiray heesii hirgalay Xasan Aadan Samatar wuxuu ka mid ahaa hobolladii waabari ee fanka Soomaalida asagoo heeso badan la qaaday fanaaniin dumar ah oo ay ka mid yihiin qadra daahir cige hiban nuura xaliimo qaliif magool saynab cige iyo fanaaniin kale oo badan heestii ugu horeysay oo uu qaad Xasan Aadan Samatar kuna gal kaalinta koowaad waxay ahayd heestii haboon waxaa erayday laxankana lahaa abwaan maxamed cumar nuur waana tan heestii haboon ee ka bogasho wacan intaas kadib Xasan Aadan Samatar wuxuu dhex dabaashay badweyntii fanka oo wuxuu qaaday heeso badan oo ay dadku aad u jecel yihiin ayadoona loogu yeeri jiray magacyo ay ka mid yihiin fanaanka codka guuxa Xasan Baashe iyo kuwo kale oo badan